I'm a refugee. I lost my country. I'm a refugee. I lost my country. I lost my small house. I lost my father and mother, my brother and sisters. I'm a refugee. I lost my country. I'm a refugee. I lost my country. I lost my small house. I lost my father and mother, my brother and sisters. fiiri meeqa dhalinyaro oo Soomaali ah oo adiga waa taqaan ama asxaabtaada ah ama laga yaabo inaad maqashay oo badda ku dhintay meeqa si jamci ah 40 50 60 70 80 iyagu isku xirxiran meel lagu duugay haday noqon lahayd Roma ama wadamada kale ee ay dadka qaxootiga tiigsadaan sida jasiiradda la yiraahdo Malta oo kale imisa dhimatay imisa dhulka ka hoos martay meeqa saxaraha lagu duleystay meeqa la kufsaday meeqa lagu shaqaystay meeqa la cadaadiyay imisa video daawata xabsiyada Liibiya dadka oo la garaacayo korkoodii uu nabra ka soo baxay dhibaatooyin badan ka muuqdaan jirdil xoog loo geystay noloshoodii dadnimadoodii mustaqbalkoodii karamkoodii sharaftii ay lahaayeen oo dhan lagu xadgudbo iyadoo oo la rabo inay lacag bixiyaan laga yaabay inaanay wadankii lacag ugu soo tag laakiin uu jiro hal guri oo reerkooda ama hooyadood iyo walaalahooda ay ku noolaayeen kuwaas oo ay hadda ku fikirayaan kuwaas la garaacayo in loo soo iibiyo si ay meesha ugu baxsadaan war tahriibtu waa aafo faa'iido ma leh cidii Yamanta soo aada ama Carabta u soo kacdana dhibaatadeedu iyadana ma yara Yaman dhibka jira hadaad aragto aad baad u yaabisa waxaad arkaysaa wadooyinka waaweyn ee magaalada Cadan haday noqoto Sheikh Uthman Mansoura Al-Qahira iyo waliba qaybaha Basaatiin iyo duleedka xaafadda Basaatiin laftirkeeda beer weyn ku taal dadku inay karaatiin ku jiifaan wiil iyo gabar saxariir duruuf gaajo silic rafaad wax tahriiba oo uu qiimo leeyahay ama faa'iido leeyahay habeeraatee mala waxa kale oo ku talagashaa mid meel walba oo timaado qof kasta oo kaas warbaaro Soomaaliya wuxuu rabaa inuu adigu cuno wuxuu rabaa inuu lacag ka qaato wuxuu rabaa inuu dalaal ka noqdo wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo Carab haya wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo gaariyan ku haya wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo ana ku kaxaynay kulligood adiga guri ka soo raadinay war meesha aad joogto ku ekaaw Ilaahay ku bare Ilaahay subhanahu qaadirka tuug inuu Ilaahay irsaaqad kugu siiyo wadankeenu waa fiicaya kalluumaysiga aad beeraha tacbo waxbarasho aad iskuulada gal isku day inaad wax barato tahriib hasoo tahriib kuwa aafo gabar iyo wiil midka tahayba tahriib faa'iido ma laha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markale kulanti waan meel baadilada ka joogtaan soo boo laga yaabay muuqaalkan uu ku soo gaaro magacaygu waa Liibaan halka adiga daawanaysan waa YouTube-ka Liibaan Kulo fadlan haddii aad igu cusub tahay waxaan si walaaltinimo leh kaaga codsanayaa inaad YouTube-ka subscribe iyo saarto like tiraahdo muuqaalka araahdaadana aad hoos ugu wadaagto sidoo kale aad sii share gareyso videoga haddii ay taasi ku suuragal tahay haddii aad hore joogtay saaxiib adna sidoo kale waa kaaga mahad celinayaa la joogistaan waxaan rabaa inaan qodob 2 iyo 3 inta waqtiga uu siiyoba amaba aan awoodeeda yeesho inaan kaga hadlo aafada ku aadan tahriibta taas oo aan isleeyahay waxay noqon kartaa wacyigelin ku aadan kuwa laga yaabo inay hadda ku fikiriyaan inay kasoo tahriibaan wadankeena hooyo sidoo kalena u babacdigaan musiibada aan ka sheekayn doono inta ay la tahay walaal tahriibku waa aafo runtii ku habsatay dadkana waa musiibo aan marna ku habooneen in daayirta Soomaalida ah ay u barbacdigaan waxaad ogtahay in dad badan oo aad qiinay laga yaabo asxaabtaada ama aad maqashay ama aad qaar ka daawatay shaashadaha telefishinada in ay ku dhinteen badaha waaweyn ee Mediterranean-ka iyo badda si la yiraahdo badda Ahmar ama Red Sea kuwaasoo runtii casho u noqday xayawaanka ku nool badda haddii ay yihiin kalluun iyo xaas amaba nibiri dadkaasi waxa ay ka tageen wadan laga jecel yahay meel ay ku dhasheen kuna soo koreen kuna barbaareen oo aroortii soo baxdaba markii ay dibadda aqalkooda uga soo baxaan ay heli jireen dad xushmeeya tixgeliya ixtiraama kuwaasoo ku salaama magacyo qurqurxoon oo aad wanaagsan sida hebel iyo waran walaal sidee tahay xaaladaadu waa sidee xalay maxaad ku baraday iyo waxyaabo kale aad u fara badan waxay ahaayeen dad mujtamaca ay ku dhex nool yihiin laga jecel yahay waxay ahaayeen dad laga yaabee in haddii ay heli lahaayeen ummad kale oo u caqli celisa ay fursado badan oo wadanka gudihiisa kaga faa'iideysan lahaayeen sida inay wax bartaan oo ay noqdaan injineero dhaqaatiir macallimiin professoro kuwaasoo jiilka kale ee Soomaaliyeed ee soo koriya wax badan uga maartay filnaan lahaa dhinaca waxbarashada ama sidoo kale waxa laga yaabaa inay noqon lahaayeen qandaraas qaatiyaal injineero dhisa guryaha buundooyinka iyo waliba meelaha badan ee burburay ee wadooyinka ugu badan yihiin ee wadankeena Soomaaliya laakiin waxa muuqata inaanay helin qof ama laba ama saddex ama group ama koox ama urur ama hay'ad
ama xitaa dowlad isku dayday inay wacyigelin uga samayso dhalinyarada islamarkaana u sharaxdo dhibaatada tahriibku leeyahay. haddii aan ku wado maalan meesha laga yaabo inaad ku fikirayso oo ah Yurub amaba meelahan carabta oo aan haddaba anigu joogo, wax nolol ah oo runtii aad halkan u imaan karto meeshan ma jiraan. haddii ay Yurub tahay dabcan inkastoo aniga aanan Yurub ku noolayn, aqoon badan u lahayn, laakiin waxaa igaga filan inta aan akhriyay, arkay ama daawaday. dadku mar walba waxay ku nool yihiin nolol ka liidata midii ay kasoo tageen. Soomaaliya waa wadan barwaaqo ah, waa wadan aad u qurux badan, waxaanu leenahay dhul beereed aad u qurux badan. runtii maanta aniga aad baan ugu shalayaa inaan kasoo tagay waddankaygii maalintii aan soo baxay. haddii aan heli lahaa sida qof hadda aniga aan ku wacyigelinayo kalo ii wacyigeliya, waxaa laga yaaba inaan wax ku qaada lahaa. dadka Yurub tagay ee aad adigu isleedahay ka daba tag, meel fiican ayay tageen ama nolol fiican haystaan, ma haystaan nolol fiican. aan runta kuu sheego, waxay ku jiraan xerooyin qaxootiya, waxaa laga yaabaa wax yaroo ceyr la siiyo. marka ay halkan hadda aan joogo aniga oo Sacuudi Carabi ah yimaadaan iyaga oo cimro u socda ama xaj ku yimaada, run ahaantii waxa ka muuqata diif, waxa ka muuqata gaajo, waxa ka muuqata duruuf. qofka ay usoo degaan ee martida ah xitaa wuu ka sheekeeyaa marka ay ka tagaan. waa dad sida haddii aan la ku raacid baahi ama gaajo geerish gaajo ah lagu xiray oo kale kasoo baxay. markay halkaan yimaadaan wax walbaba waxay u egyihiin inay ku boodayaan, u cararayaan sidii inaanay arki jirin oo kale. meeshaas waa Yurub, wax faa'iida oo ay leedahay male. bal fiiri meeqaa dhalinyaro oo Soomaali ah oo adiga aad taqaan amaba asxaabtaada ah ama laga yaabo inaad maqashay oo badda ku dhintay. meeqaa si jamci ah 40 50 60 70 80 iyagoo isku xirxiran meel lagu duugay. hadday noqon lahayd Roma ama wadamada kale ee ay dad qaxootiga tiigsadaan sida jasiiradda la yiraahdo Malta oo kale. imisaa dhimatay, imisaa dhulka ka hoos martay, meeqaa saxaraha lagu duleystay, meeqaa la kufsaday, meeqaa lagu shaqaystay, meeqaa la cadaadiyey. imisaad video daawataa xabsiyada Liibiya, dadka oo la garaacayo, korkoodii uu nabro ka soo baxay, dhibaatooyin badan ka muuqdaan, jirdil xoog loo geystay, noloshoodii, dadnimadoodii, mustaqbalkoodii iyo karamkoodii sharaftii ay lahayn oo dhan lagu xadgudbo, iyadoo oo la rabo inay lacag bixiyaan. lagana yaaba inaanay wadankii lacag ugu soo tegi, laakiin uu jiro hal guri oo reerkooda ama hooyadood iyo walaalahooda ay ku noolaayeen, kuwaas oo ay hadda ku fikirayaan kuwaas la garaacayo in loo soo iibiyo si ay meesha ugu baxsadaan. war tahriibtu waa aafo, faa'iida ma leh. ciddii yamanta soo aada ama carabta usoo kacdana dhibaatadeedu iyadana ma yara. yaman dhibka jira haddaad aragto aad baad u yaabaysaa. waxaad arkaysaa wadooyinka waaweyn ee magaalada Cadan, hadday noqoto Sheekh Cuthmaan, Mansuura, Alqaahira iyo weliba qaybaha Basaatiin iyo duleedka xaafadda Basaatiin laftirkeeda beer weyn ku taal. dadku inay karaatiin ku jiifaan, wiil iyo gabar, saxariir, duruuf, gaajo, silic, rafaad. wax tahriiba oo uu qiimo leeyahay ama faa'iido leeyahay habeeraatee mala. waxaa kaloo ku talagashaa mid meel walba oo timaado, qof kasta oo kaasoo horbaaro Soomaaliya wuxuu rabaa inuu adiga ku cuno, wuxuu rabaa inuu lacag ka qaato, wuxuu rabaa inuu dalaal ka noqdo, wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo carab baan haya, wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo gaariyan ku haya, wuxuu rabaa inuu ku yiraahdo anaa ku kaxaynay. kulligood adiga guri ka soo raadinay. war meesha aad joogto ku ekaaw, ilaahay ku bare, ilaahay subxaana qaadirka tuug inuu ilaahay irsaaqad kugu siiyo. wadankeenu waa fiican yahay, kalluumaysiga aad, beeraha tacbo, waxbarasho aad, iskuullada gal, isku day inaad wax barato. tahriib ha soo tahriibin, tahriibku waa aafo. gabar iyo wiil midkaa tahayba tahriib faa'iida ma laha. dadka hore usoo baxay ee hore usoo tahriibay ee halkan jooga meeshan hadda aan kala hadlayo hadeertaan dadkii aan ugu yimid ilaa 80kii soo galay hadda waa gaajo, waxba ma haystaan. kii shalay soo galay halkan ee yimid ee lugta ka soo galay ayaa ka fursad fiican. nolol ma taalla meeshan, ha isku soo lugoynin. fadlan naftaada ha halligin, waayo inaad naftaada halligtaan waa dhibaato aad u weyn. waxaa adigoo heli kara inaad wax barato inta aad yar tahay, mustaqbalkaada ka faa'iidayso. waxaa laga yaabaa berri Soomaaliya inay ficnaato, Soomaaliya inay xasisho, Soomaaliya inay nabad noqoto, dadkeedu inay isjeclaadaan, ummadeennu inay ilaahay qalbigooda uu khayr ku shubo, oo ay markaa dhalato dowlad caadil ah, dowlad qurux badan, dowlad aad u weyn, dowlad aad loo jeclaado. markaasna waxaa loo baahanayaa cidda wax taqaan. waxaa lagu leeyahay maxaad haysataa, maxaad ku shaqo gashaa, waa maxay mehnadaada. war inta aad yar tahay ha isku lugoonin tahriib, ha ku soo rafaadin tahriib, naftaada badda ha ku halligin. ilaahay ka cabso, wadankaaga joog, ilaahay bari. meel walba ilaahay isaga arsaaqad kugu siinaya. oo xoogso, oo shaqayso, oo badda ka kalluumayso, oo beeraha tacbo, oo xoolaha maaragtay dhaqaalayso, oo guurso, oo inta aad yar tahay cimrigaada iyo dadnimadaada ka faa'iidayso. war halkan banaanka waxba faa'iido ma yeelaan. meeshan loo soo kala cararayo dhimasho iyo khasaaro iyo rafaad, ma ogi faa'iido meeshan marna lagama keeni. maanta halkan aan ku noolahay, dadka ku nool oo ilaa 80kii soo gaaray, markaad muuqaalkaada aragto wallahi waa isku naxaysaa.
badankoodna siday u joogaan maalinta u dambaysa iyaga oo xanuunsan cudur qaba jiran dhibaato dhan haysto faqri ah oo waxba haysan oo laba kiis oo dawo ah ay gacnaha ku sitaan ay halkan ka tagaan waddanka u noqdaan meydkooda unbay geeyaan wax faa'iido ah oo ay waddankii ku celiyaan midna ma laha sababtuna waxay tahay qurbo khayr ma laha qurbo faa'iido ma laha war meesha aad joogto ku ekaaw shaqayso xamaalo waxbaro ilaahay ka cabso ilaahay bari intaasaan kula wadaagaya aad baad u mahadsantahay tahriibtu waa aafo fadlan dadka u sheeg yaan la soo tahriibin bannaanka waa lagu dhibtooday kufsi baa jira jirdil baa jira dadka waa la addoonsadaa ummadda waa la gumaystaa meel walbaa lagu silc dilaa dhaqaalahoodii yaa la boobaa naftoodii yaa halis la geliyaa min fadlan meydadkooda meel walba waran xaaddaa ka dharagtay kalluunkaa ka dhargay meel walbay ku dayacmeen soomaali maanta sharaf iyo sumcad iyo cizi midna uma dhinna meel walbay ku dhammaatay miniyahow fadlan waxaad samaynaysaa weliba gabdhaha dhallinyarada ah ee soomaaliyeed hadda ku fikeraya inay soo baxaan fadlan gabartu waa sharaf gabadhu waa karaamad gabadhu waa haybad waa calaamadii soomaalinimada min fadlan gabdhayahow idinkuna gurigeena ku nagaada waddankeena jooga ilaahay meeshaas ku barya ilaahay ka tuuga inaad heshaan nolol fiican ilaahay ka tuuga inaad nabad ku heshaan waddankeena ha soo tahriibina cawradiina bannaanka keenina dadnimadiina ha ku cayaarina ha isu ogolaanina in laydinku xadgudbo ha naftiina ha u ogolaanina in dariiqa lagu kufsado min fadlan jooji tahriibka adna walaal meeshaad joogtaba muuqaalkan sii sheergaray si dadkeennu ay tahriibtaas uga bagaadaan uga harsadaan uga fakadaan oo aan loogu qalqaalin inay tahriibta naftooda kusoo halligaan aad baad u mahadsantihiin maca salaama I'm a refugee. I lost my country. I'm a refugee. I lost my country. I lost my small house. I lost my father and mother, my brother and sisters. I'm a refugee. I lost my country. I'm a refugee. I lost my country. I lost my small house. I lost my father and mother, my brother and sisters. No guns, no fight. We need a life with peace. No guns, no fight. We need a life with peace. We don't need more war. We don't need more guys. We don't need more war. We don't need more guys. I'm dreaming like everyone in the world. I'm dreaming like everyone in the world. To be a human, living in a good life without any problems. I'm dreaming like everyone in the world. I'm dreaming like everyone in the world. To be a human, living in a good life without any problems. No guns, no fight. We need a life with peace. No guns, no fight. We need a life with peace. We don't need more war. We don't need more guys. We don't need more war. We don't need more guys. We are Somalians. We are Africans. We are Somalians. We are Africans. Our blood is one. Let us together hand by hand to build a future. We are Somalians. We are Africans. We are Somalians. We are Africans. Our blood is one. Let us together hand by hand to build our future. No guns, no fight. We need a life with peace. No guns, no fight. We need a life with peace. We don't need more war. We don't need more guys. We don't need more war. We don't need more.
that. We don't need more war. We don't need more that.